السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونكسن دمان أصحابنا نوحيران ودهن وحن مقالكن كاجا جواب دوننا سؤال دورة أو أصحابنا نوحيران مالمه لصوت عفن سوي دينيين كواس أو جودهان انترفيو وكوساب سنة ما دام دتك إن بدن أو كميد انترفيو جمرين إن بدن أو كميد نولي سوجيان بدونا لفيلا يو إن شغاله فصحي سند لها قلي دونان هذا بقى أنت أنا أوجد جل الموضوع إن ما أنت وحن ربا إن إسكورت تاجنا دور الريموت أرنت كوباد أو سؤالها أنت بدن أصحاب تجربية كوساب النكتة أرنتان هرين وين سكر تاجني mar labaadna waxaanu jeclaysanay inaan iskor taagno si ugu yaraan fahamka asxaabta aan u soo dhaweyno 95% su'aalaha gurubyada ku jira waxaan dhihi karnaa waa su'aalo ku salaysan waxa loo yaqaan personal assessment oo aan ula jeedo waxa inta badan dhacda in qof walba oo ku jira gurubyada WhatsApp-ka, Instagram-ka, Telegram-ka iyo wixii la mid ah in markii uu interview-ga maro ama marto oo si automatic ah u soo geliyo gurubyada guud ahaan su'aalihii la weydiiyay taasoo micnaheedu yahay inuu dhammaan asxaabtiisa iyo gurubyada la wadaago qaabkii interview-giis u dhacay iyo su'aalihii la weydiiyay haddaba su'aasha ayaa ah arrintan ma tahay mid ka caawinaysa interview-ga waxaan ku leeyahay haddana maya oo waxay ka caawinaysaa guud ahaan qaabka wax u socdaan ama filashada guud ee ka jirta goobta interview-ga haddana maya oo loogama cabir qaadan karo su'aalaha gurubyada yaala kayskaaga ama sheekada adiga ku qoran taasoo aan ula jeedo sarkaalka interview-ga qaadaya marka laga reebo su'aalaha guud ee dadka ka dhaxeeya waxaa jira su'aalo ku gaar ah waxaana dhihi karnaa su'aalaha gaarka ah waa su'aalo ku xiran qaab dhismeedka kayskaaga arrinta la xiriirta dadkii ugu dambeeyay ee interview-ga maray laakiin loo muujiyay in aan kayskooda lagu qancin waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood marmarka qaar waxaa dhacda in inta interview-ga lagu guda jiro lagu sheego in aan kayskaaga lagu qancin arrintan waa xaalad kula soo gudboonaan karta marmarka qaar sidaa darteed kama dhigna in reject lagu siiyey ama lagu diiday laakiin waxa ay ka dhigan tahay sida uu kugu qiimeeyay sargaalkii waraysiga ka qaadayay waa dhici kartaa sida uu sheegay inay noqoto sidoo kale waa ay dhici kartaa inay noqoto wax sarkaalka ku eg ama aragti laga laabto qaybta labaad waa in lagu soo diro warqadda diidmada ah taasoo sheegaysa in aan lagu qancin kayskaaga sidaa darteedna dawladdu ku diiday arrintan dadka qaar markii ay la kulmaan waxay qaataan go'aan ah inay gebi ahaanba ka tanaasulaan dacwaddii u socotay laakiin waxaa qofka u furan in uu abiil ka qaato ama loo yar qabsado taasoo kaa saacidaysa in dacwaddaadu horay usii socoto hordhac ahaan intaas haddii aan uga gudubno bal aan u gudagalno qodobadeenna maanta iyo su'aalihii asxaabtu naga soo weydiiyeen interview-ga waxaa marmarka qaar dhici karta in lagu weydiiyo wadada aad soo martay kolkii aad soo safraysay haddaba su'aalaha kaaga imaan kara qaybta safarkaaga la xiriirta waa laba mid guud ahaan goobaha aad soo martay oo loola jeeda magaalooyinka aad soo martay iyo taariikhda aad soo martay goobahaas sidaa darteed haddii lagu weydiiyo magaalooyinka intii aad safarka ahayd aad soo martay muhiim ma aha inaad taariikhda ku lifaaqdo ilaa sarkaalka ku waraysanaya uu kaa dalbado waxaa kale oo marmarka qaar arkaysaa qof aad isugu howlaya sidii uu sheekadiisa ama kayskiisa u xafidi lahaa waana arrin qofka khalkhal ku keeni karta haddii uusan hadda kasii gaashaaman maxaan sidaas kuu leeyahay si walba oo aad u memorize garayso sheekadaada waxaa kugu filan cabsi yar oo ku soo wajahda inta interview-ga lagu guda jiro ama emotionkaaga oo isbeddel ku yimaado taas oo ugu dambayn keeni karta in aad wixii aad soo xafiday kala hilmaanto sidaa darteed waa muhiim inaad sheekadaada faham ku salayso waxaa kale oo muhiim ah inaad ka taxadarto lacalla haddii ay jiraan dad qaraabadaada ah oo kaa horreeyay ama horay dawladdu interview uga qaaday waxaan arrintan u soo qaatay ayaa ah waxaa marmarka qaar kaysaskana soo gaara ka mid ah shakhsi hadda interview maraya oo qof ay qaraabo dhow yihiin ama isaga horay u sheegtay ay ku kala duwanaadaan dhacdooyinka qaar taasoo kugu keeni karta inaad ku guuldaraysato interview-ga tusaale haddii uu jiro qof ehelkaaga ah sida walaal ama waalid iyo wixii la mid ah waa muhiim inaad iska xaqiijiso waxa ay horay u qorteen waxayna taasi kaa saacidaysaa inaan kala hadal ama dulduleel lagaa helin sidoo kale waxaa marmarka qaar dhacda in wax lagaa weydiiyo locationka ama magaalada aad sheegatay inaad ka timid sida magacyada garoomada wadooyinka ugu caansan suuqyada ugu caansan hosbitaalada masaajidada iskuulada jaamacadaha xarumaha dawladda iyo wixii la mid ah marka haddii aadan aqoon wanaagsan u lahayn waxaa dhici karta in ay caqabad kugu noqoto sidaa darteed waa muhiim inaad isku daydo in aad cid kugu dhaanta raadsato si aad information ama xog kugu filan uga hesho guud ahaan deegaanka kuu qoran ama
sheekadaada ku xusan. waxaa sidoo kale muhiim ah in haddii sheekadaada ama kayskaagu ku jirto xirfad aad hadda ka hor lahayd oo aad ku shaqaysan jirtay sida caafimaadka, makaaniga, darawalnimada iyo wixii la mid ah. marka tusaale ahaan waxaad sheegtay inaad gaari darawal ka ahayd. waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo modelka gaariga, capacity-ga ama tanka uu qaadi karo, gear ama automatic hadba midka uu ahaa, nooca injiinka ama matoorka gaariga, acceleration kilometer per hour ama xawaaraha saacadii uu jari karo, emissionska gram per kilometer oo ah qadarka carbon dioxide ee baabuurku ku sii daayo hawada iyo wixii la mid ah. qodobka ku xiga waa arrinta taariikhda la xiriirta sida age-ka ama da'da ama taariikh dhacdo ku xusan. sidaa darteed arrintan aad ayay noogu soo laalaabatay, waana arrin inta badan dadku walwal dheeraad ah ka muujiyaan. waxaana u kala qaadaynaa laba qaybood oo kala ah taariikh dhalasho tilmaamaysa sida waalidiintaada iyo walaalahaaga. tani inta badan su'aalo kama yimaadaan. tan kale waa taariikh dhacdo tilmaamaysa sida dhimasho, dhaawac, afduub iyo wixii la mid ah. waana halka su'aalaha ugu badan kaaga imaan karaan, ayna muhiimka tahay inaad xoogga saarto. arrinka kale ee muhiimka ah waa inaad mar walba maskaxda ku hayso su'aalaha micnayaasha badan yeelan kara ama sida aad u tiri si ka duwan loo fahmi karo. tusaale, kayskaaga yaa diyaariyey, kayskaaga yaa kaa caawiyey, horay ma u soo shaqaysay. sidaa darteed su'aalaha noocan ah jawaabta aad ka bixiso waxaa laga yaabaa in fasiraado iyo meaning kala duwan laga baxsho. taasina sabab ay u tahay qaabka aad uga jawaabtay oo ah inaadan caddaynin markii aad jawaab celinta samaynaysay. sidaa darteed waxaa kula gudboon in aadan ku degdegin jawaabta marka su'aalaha noocan oo kale ah yimaadaan. haddii ay dhacdo in aad ku turunturooto, waxa kula gudboon ayaa ah inaad tiraahdo ma fahmin, codsatana in su'aasha lagugu soo celiyo ama mar kale dib lagu weydiiyo. waxaa taas la mid ah marmarka qaarna dhacda in su'aal lagu weydiiyey aad khalad fahanto kana bixiso jawaabtii ku habboonayd jawaab ka duwan. marka haddii ay dhacdo inaad gadaal ka garowsato inaad bixisay jawaab qalad ah, isku day in aad ka dabatag samayso ee aadan halkaa uga harin. ugu dambayn, haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka muuqaalkan, waxaa naga xasuusin ah inaad muuqaalka like garayso, siina sheer garayso si uu meelo fogfog u gaaro, dadkuna uga faa'iidaystaan. wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska. hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan janalkan ku soo gudbinno aysan kuu dhaafin. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa walaalkiin Saacid Xaaji Aadan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.